halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com. Axmed Cabdinuur ayaan ahay. waa maalin Arbaca 3 bisha May 2017. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka degay Addis Ababa. waxaan falanqayn doonaa muhiimadda socdaalkiisa. axmed ducaale geelle xaaf waxa uu noqday madaxweynaha galmudug. muxuu ka qaban doonaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee halkaasi ka jira? shirka London ee Soomaalida waxyaabaha lagaga hadlayo waxaa ka mid ah nabadgelyada dalka. baarlamaanku waxay leeyihiin wixii lagu heshiiyo waa in la soo marsiiyo. annaka qaraarkayga way ku qoran tahay in subject to parliamentary approval weeyaan, waa in lagu soo celiyaa baarlamaanka oo baarlamaanku marka ka dooda munaaqashooda kadibna markaa baarlamaanku ansixiyaa, markaas bay noqonaysaa ansax. maanta waa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda hadalka iyo saxaafadda. xaaladda Soomaalidu waa sidee? sidaan ognahay haddaan nahay wariyaasha Soomaaliya ka shaqeeya in xorriyad ka jirto oo hadalka ma dhihi karno Soomaaliya, xorriyad la isku haleyn karo oo wax walba lagu sheegi karo ma ka jirto. arrimahaas iyo qodobo kale oo caalamka iyo Soomaalidaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan saacadda soo socota. marka hore wararka caalamka ee BBC-da waxaa noo haya maxamed cadde. mahadsanid Axmed. madaxa wadaxaajoodiyada ugu qaabilsan ururka midooda Yurub Michael Bana ayaa ka hadlay waxyaabaha ay mudnaanta koowaad siinayaan sida ay Britain uga baxayso ururkaasi. Mr. Bana ayaa sheegay in waxyaabaha wejiga koowaad ee wadahadallada lagu fiirinayo ay ka mid yihiin sidii loo xisaabin lahaa arrimaha dhaqaalaha iyo in la damaanad qaado muwaadiniinta ururka midooda Yurub ee ku nool waddankan Britain iyo arrimaha la xiriira xuduudada dibadda. mar uu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay in lacagaha laga doonayo Britain aysan ahayn wax lagu ciqaabayo dalkan, hase ahaatee ay tahay oo keliya isla xisaabtan iyo xisaab xir. waxaa jiray warar la isla dhexmaray oo warbaahintu ay sii daysay oo lagu sheegay in ururka midooda Yurub ay gaarsiin karaan lacagaha Britain laga doonayo ilaa iyo $1 bilyan. madaxa wadaxaajoodiyada ugu qaabilsan ururka midooda Yurub oo BBC-da la hadlayay waxa uu yidhi: mar kale ma jiri doonto ciqaab, mana jiri doonto lacag aan ku bixin doonno ka bixista arrimaha dhaqaalaha. heshiiska ku saabsani waa sidii aynu u kala bixi lahayn. tiro badan oo ah dadka ka shaqeeya goobaha laga qodo macdanta ayaa ku hoos xaniban dhulka hoostiisa kadib markii uu qarax weyn ka dhacay goobtii ay ka shaqaynayeen ee waddanka Iiraan. madaxa gurmadka degdega ee waddanka Iiraan ayaa sheegay in 40 ka mid ah dadkii ka shaqaynayay godkaasi ay ku xiran yihiin hal god, halka qaar kalena ay ku xiran yihiin god kale. cabsi waxaa jirta la xiriirta in dad badani laga yaabo inay halkaa ku dhintaan. dad kale oo ka shaqaynayay isla goobtaasi laga qodayay macdanta ayaa la sheegay inay baxsadeen iyagoo aan waxba gaarin. dowladda Iiraan si rasmi ah ugama ay hadlin qaraxaas, hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay oo ay wararka qaar tilmaamayaan inuu ka dhashay gaas. wafdiga mucaaradka dalka Suuriya ayaa isaga baxay kulankii ugu dambeeyey ee xabad joojinta ee Ruushka uu abaabulay oo ka dhacayay magaalada Astana ee caasimadda u ah dalka Kazakhstan. wafdiga ayaa lagu soo waramay inay wadahadallada ka baxeen iyagoo ka caraysan in xukuumadda Suuriya ay sii wadayso duqaynta ka dhanka dadka rayidka ah ee xagga cirka. wareeggii afraad ee wadaxaajoodiyada Astana ayaa waxaa u qorshaysnayd in looga wada hadlo qorshe deegaano dagaalka ka caagan looga sameynayo goobo badan oo ka mid ah dalka Suuriya. kulankan ayaa waxaa markii ugu horreysay kormeer ahaan uga qayb galay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. ciidamada cirka ee dalka Mareykanka ayaa tijaabiyey gantaal ah kuwa iskaga goosha qaaradaha oo aan hubaysnayn, waxaana gantaalka laga riday saldhig militari ay ku leeyihiin gobolka California. waana tijaabadii labaad ee ay sameeyeen
muddo toddobaada gudihii waxayna ku soo beegmaysaa iyadoo ay sii kordhayso xiisadda militari ee ka jirta dalka kuuriyada waqooyi. gantaalkan oo la yidhaahdo minuteman 3 ayaa xawligiisa waxa uu ahaa in ku dhow 7,000 oo kilomitir saacadiiba inta uusan ku dhicin jasiiradda marshaal. afhayeen u hadlay ciidamada maraykanka ayaa sheegay in tijaabadani ay tahay wax iska joogta ah oo caadi ah. ugu dambayntiina kolonyo baabuur militari ah oo ay leeyihiin howlgalka uu horseed ka yahay maraykanka ee nato ee ku sugan waddanka afghanistan ayaa magaalada kaabul waxaa ku weeraray baabuur lagu soo guray waxyaabaha qarxa. saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan ay ku dhinteen halkaasi 8 qof kuna dhaawacmeen 25 kale. 3 xubnood oo ka tirsan howlgalka nato ayaa dhaawacmay. qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow safaaradda maraykanka. nin goobjooga ah ayaa BBC-da u sheegay sida wax u dhaceen. isaga ismiidaamiyuhu wuxuu fadhiyey dhexbartanka labada waddo wuxuuna si anfariir leh u eegayey geesaha hadba. markii ay ku soo dhowaadeen labada baabuur ee ciidan ee maraykanku leeyahay wuu istaagay. waxaan ka gudbay goobta. markii aan gudbayna qarax ayaa dhacay. maxamed cabdi wuu mahadsan yahay. wararkaas caalamka ee BBC-da ayuu inala socodsiinayay. halkani waa London. haddii aan ku bilaabo barnaamijka, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu markii ugu horeysay booqasho ku tegay dalka dariska ah ee Itoobiya tan iyo markii jagadaas loo doortay horaantii sanadkan. Itoobiya waxay saameyn ballaaran ku leedahay arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ee dalka Soomaaliya, waxaana jiray warar aan rasmi ahayn oo sheegayay in xiriirka labada dhinac aanu maalmahan dambe aad u wanaagsanayn. cabdiweli maxamed gurey waa aqoon-yahan aad ula socda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika, culumta xiriirka caalamiga ahna shahaadada PhD ku diyaariyey jaamacadda SOAS ee magaalada London. istuudiyaha ayuu haatan ila fadhiya. waa mahadsantahay cabdiweli. ka waran muhiimadda safarka madaxweyne Farmaajo? aad baan walaalle kugu mahadinaya soo dhoweynta. haddii aan u soo laabto arrimaha Farmaajo, runtii saynu ula soconnaba dowladdan Etoobiya waxay qayb ka ahayd Soomaaliya waddamadii qaybta ka ah in ay nabadooda sugaan. hadday noqotona waxaad moodaa isu soo duubo Soomaaliya xilligii doorashadu ka dhacaysay si fara badan baa dadka Soomaaliyeed u eegayeen. waxaana ugu eegayeen inuu dowladda Etoobiya runtii ay qayb ka ahayd oo ay dhexgalla fara badan oo siyaasadeed ay ku gashay Soomaaliya, iyo hadda madaxweynaha la doortay oo aad moodo inay markaas iyagu jagi ka lahaayeen. waxay noqotay marka madaxweynuhu aadinkan uu aaday maanta, runtii dadku si fara badan bay u arkaan. waxaa lagu tirinayaa Farmaajo inuu ahaa nin marka la fiiriyo ama arrimihii lagu doortay ama dadku wadcigii uu ku jiray inay ummadda Soomaaliya doonaysa inay xoogaa bal dhinac iska dhigto waddamadan dariska la ah. faragelin fara badan oo lagu tirinayo, is-aaminid la-aan fara badan oo laftigeedu ka jidho. hadday noqoto masalanba waxaanu la soconnaa ciidamada Etoobiya dad fara badan inay ka joogaan meeshaas. maanta ugu dambeysay waxaa igu maqaalaa waxay soo galeen meel la yidhahda halgan. shalana waxay ka baxeen iyo maalmihii macnaha ku horreeyey ceelbuur. marka waa dareemi ka jadhaa, balse waxaad moodaa hadda fafaalaha muuqdaa soo dhoweyn fara badan inay u muujiyeen dowladdii Etoobiya. prime ministerkeedii inuu yimid, cabdi cumar inuu yimid oo ah asagu ismaamulka Soomaaliya madaxweynaheedii. marka kolley waxaan filayaa maadaama meeshaas ay tahay bayskii ugu weynaa oo AU haddii la fiiriyo siyaasad ahaan arrimaha Afrikana ay maaragtay ka ukumaan. Soomaaliya aynu la soconno ama ha ahaato maanta loo baahan yahay adduunka inay tixgelin ka hesho oo runtii aragtiyaal fara badan oo ay ka jiraan ama ciidamada Etoobiya ha ahaato ama siyaasadda Soomaaliya ku wajahan ha ahaato. waxaad moodaa aragti ahaan inay arrimahaas la jecel yahay in laga wada hadlo. waynu la soconnaa Soomaaliya waxyaabo fara badan baa ka socda. waxaa ka socda isballaarin fara badan waddamada Carabaha Afrika. hadda siyaasadda Etoobiya ku aadan kolley waa ka hadlayaan ayaga dantooda ah, balse waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed wax fara badan inay maaragtay iska weydiinayaan madaxweynuhu wuxuu kala soo kulmo. is-afgarasho la-aantan marka runtii muuqata oo dowladda Etoobiya dowladda Soomaaliya maanta aad moodid ama madaxweynaheedu xoogaa aragti inuu ka leeyahay inay tahay number 1. dadka Soomaaliya saynu la soconnaba
waxaa lagu tirinaya inuu maanta madax bannaan yahay inuu transitionalkii ka soo baxay oo dowlad jidha maanta ay tahay marka kolle waxaan filayaa in ay bedelayaan Ethiopia siyaasadihii ku aadanaa Soomaaliya marka ma Soomaaliya isbedelaysa oo farmaajo ayaa mowqifkiisii doorashada uu ku galay oo matalan wadaniyadu ay ka muuqatay ayuu wax ka bedelayaa mise Ethiopia ayaa aragtay in farmaajo uu yahay madaxweyne ku xoog badan dalkiisa oo iyada wax iska bedelaysa waxaan filayaa siyaasaddu waa give and take wax fara badan oo Soomaalidu ay tirsanayso baajida siyaasad ahaan waxaa jirta oo lagama maarmaan ah waan la socnaa ciidamada Soomaaliya baajira dowladda Soomaaliya waxaa kulle muhiimadu ay tahay inay jiritaankeeda uu muqadas yahay waa jira wadamo taageera sida ciidamada Ethiopia everything waxyaabo fara badan baa jira marka inay ummadda Soomaaliyeed ama dowlad ahaan farmaajo kale waxaan filayaa ra'yigiisu inuu ka marnayn wixiina taageerayana taageeran laakiin ciidan ahaan haday noqoto in ay jiddo generikiyadii lagu kala amar qaadan jiray dowlad ahaan haday jiddo siyaasadda Soomaaliya ay madax bannaan tahay aragtida inay baxnaanta haday tahay mid dhaqaale la sheer gareynayo haday tahay mid siyaasadda la sheer gareynayo kale waxaan filayaa madaxweynuhu arrinta ummadda Soomaaliyeed maanta uga fadhidaa inay tahay Soomaaliya baa leh wixii siyaasad ku saabsan oo Soomaaliyana go'aankeeda waxa iska leh dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaheeda laakiin Ethiopia siyaasad ahaan iyo shacbi ahaan iyo si kasta marka loo fiiriyo waa quwadda gobolka marna miyaa laga maarmaya in Ethiopia xiriir wanaagsan lala yeesho runtii waa aad iyo aad baan hadalkaagaas uu yahay very important waxa ugu weyn waxa weeye Ethiopia geographically wadamo daris baynu nahay waynu la soconaa Soomaaliya xataa burburkii ka dhacay dad fara badan baa meeshaas u qaxay hadda ayaguna wax dhacaan goor forbin anagu hadda qorana mareen waxba dhacay kullu waxa imaanaya marinaya wadamada dariska marka laga maarmaan weeye in la wada shaqeeyo laakiin in lagu wada shaqeeyo laba dawladood oo siman baan filayaa inay tahay aragtidu mana qabo Soomaaliya intaas ay sii waraaqday inay siyaasadeeda wadamo ay jiheeyaan maadaama Soomaaliya maanta loo baahan yahay laftigeedii ama international community ahaato ama Soomaalida waxyaabaha ka go'an ahaatee inay dadka Soomaaliyeed wax noqdaan oo ay magac yeeshaan oo ay dawlad noqdaan oo ay go'aankooda madax bannaanadaan kullu marka waxaan filayaa give and take policy inay meesha ka imaanayso laakiin aysan dhici doonin sidaan filayo aragtida dadka ka muuqata Soomaaliya inaysan dhici doonin in loo dulqaato in Soomaaliya la iska maamusho oo ay noqoto guri burburay khilaafka la sheegayo qudhiisa ma wax la iska mala waashay way u ag tahay mise wax la taaban karo ayaa jira in maaragtay farmaajo iyo Ethiopia aan isku wanaagsanayn waxaad moodaa runtii khilaafkan waxyaabo fara badan buu ku imaanaya intersiyaal dowladeed buu ku imaanaya wuxuu ku imaanayaa arrinta Soomaaliya iyo marxaladaha ay soo marday wuxuu ku imaanayaa ka maamul ahaan maadaama Soomaaliya loo baahan yahay inay kobcdo oo ay siyaasadeeda ay jihayso oo ay Afrika cod ku yeelato oo iyada jiritaankeedu uu noqdo mid jira kole laga maarmaan weeye arrimahaas faraha badan oo laga hadlayaa inay tahay mesela security baa kamid ah Soomaaliya dhismay u baahan tahay ciidan bay u baahan tahay hadee waxyaabo fara badan oo wadamada dariska loo tirinayana waa jiraan marka madmadowga waxaan filayaa in laga baxo inay important tahay madaxweynuhu go'aankiisu inuu yahay inuu taas kala hadlo waxaana filayaa marka la fiiriyo dad labada shacab ama Ethiopia ha ama Soomaalidu ha ahaato dadku mar walba horseed inay u yihiin in nabad lagu wada noolaado balse in aan muxuu ahay aysan dhicin mar dambe proxy war wixii la oran jiray oo loo tirinayo wadamo fara badan oo Soomaaliya lagu dul dagaalamo ma kula tahay ciidankan aad haday sheegtay halgan soo galay Ethiopiaanka ku soo noqday gobolka Hiiraan astaan fiican oo soo dhaweynta madaxweynaha kamid astaan fiican waa in fact wuxuu yiri war la helaaba tala la hele kullu madaxweynihii meeshii buu tagay calamo fara badan waa la lulay si fiican baa loo soo dhaweeyay wali madaxweynihii kifilka shanaad baa ku jiray dad fara badan oo aan aaminsanahay diaspora fara badan oo Soomaaliya baa Ethiopia laftigeeda ku nool marka war la helaaba tala la helay waxaan filaynaa khayr baan u rajaynaynaa in maaragtay safarkiisa madaxweynuhu ku soo dhamaado waxaan rajaynaynaa shakigii faraha badnaa in ummadda laga dhex saaro oo Soomaaliya maanta meesha ay taalo Afrika ay u taallaa sidaan ula soconaba magaala madaxdii Afrika waa Ethiopia marka Soomaaliya markay wax noqotaa Afrika wax noqon kartaa laakiin ma dhacayso inay Soomaaliya mar walba noqoto kuwii wax loo yeesho taasaana filaya madaxweynuhu inuu ka digtoonaan doono waa mahadsan tahay dabcan wixii ka soo kordha safarka madaxweyne farmaajo dalka Ethiopia barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqal doontaan hagaag
axmed ducaale geelle oo loo yaqaan xaaf ayaa noqday madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee bartamaha soomaaliya kadib markii maanta lagu doortay magaal madaxda maamulkaas ee cadaado warkan waxaa inoo haya wariyaha b b c ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo haatan khadka toos ugu jira. ibraahim. axmed waxaa codaysay 89 xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka galmudug. axmed ducaale geelle xaaf wuxuu helay 54 cod. axmed cali hilowle oo loo yaqaan axmed shariif oo la tartamaya wuxuu helay 34 cod halka hal cod uu halaabay waana wareegii labaad marka uu axmed ducaale geelle xaaf ku soo baxay doorashada galmudug. wareegii koowaad 3 nin ayaa ku tartamaysay oo kala ahaa axmed ducaale geelle xaaf, axmed cali hilowle, axmed shariif iyo nin la yiraahdo cabdiqaadir shirwac. waxayna wareegii koowaad kala heleen xaaf oo helay 57 cod iyo axmed shariif oo helay 24 cod iyo cabdiqaadir shirwac oo helay 7 cod. sidaa daraadeed wareegii labaad ayaa la galay waxaana soo baxay axmed ducaale geelle xaaf waxaana ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir. waxaa joogay wafdi ka tirsan dowladda federaalka oo horkacayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta siciid faarax cabdi juxa. waxaana aad looga soo dhaweeyay doorashada axmed ducaale geelle xaaf magaalada gaalkacyo. mar aan taleefonka kula hadlay magaaladaasna xabado badan ayaa la ridayey oo loogu dabaaldegayey doorashada axmed ducaale geelle xaaf. axmed ducaale wuxuu bedeli doonaa madaxweynihii isaga ka horreeyey cabdikariin xuseen guuleed oo iscasilay arrimo la xiriira caafimaadkiisa. axmed ducaale geelle xaaf waa siyaasi 16 sano ee lasoo dhaafay wuxuu ku jiray baarlamaanadii kala duwanaa tan iyo baarlamaankii carta lagu dhisay sanadkii 2000. sidaas oo kale waa ganacsade aad looga yaqaano magaalada muqdisho iyo gobolada dhexe iyo gobollo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. wuxuuna bilihii ugu dambeeyay loolan ugu jiray xilkan siyaasadeed ee ah madaxweynaha galmudug. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waa tahay haddaba maxay tahay hawsha u taal madaxweynaha cusub? waxaa stuudiyaha ila fadhiya axmed shire oo hore wasiir uga soo noqday maamulka galmudug. axmed waa mahadsan tahay, ku soo dhawow. sidee u aragtaa doorashada xaaf ee madaxtinimada galmudug? bismillahi raxmaani raxiim. doorashada xaaf waxa weeye waa guul weyn oo usoo hitay galmudug. xaaf waa nin oday ah oo rugcada ah oo xagga siyaasadda aad ugu dheereeya, xagga dhaqanka iyo dhaqan dhaqaalahana aad wax uga yaqaana, ganacsadana ah. deegaanka galmudugna daldalolooyinka ka jira la oran karo waa uu buuxin karaa oo waa nin waay aragnimo u leh wax ogaalna ah oo si fiican wax uga og. waxaan marka rabaa inaan halkaan ka faa'iidaysanayo iyagana aan hambalyo u diro sidii milgada lahayd ee sharafta lahayd ee karaamada lahayd ee dimuqraadiyadda ahayd xildhibaanada galmudug ayagoo degan oo muuqaal fiican ka muuqanayo ay ugu codeeyeen 3 musharax. xaafna waxa sida xaaf codka u siiyana ummadda reer galmudug meel joogtaba way soo dhaweynaysaa. sabaha aan kuu sheegay awood waana u hambalyaynayaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ee guusha uu gaaray. waxaan ka filanaynaa haddaynu nahay dadka reer galmudug in uu horseedo nabad iyo guul hadday noqon lahayd galmudug kala laalaadkeeda iyo hadday noqon lahayd maamulada dariska nala ah iyo ku xirnaanta dowladda federaalka iyaduna ah wax muhiima oo ay galmudug u baahan tahay iyo dadka reer galmudug oo gacnaha isqabsada. dadka reer galmudugna waxaan ka rajeynayaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladda cusub ee hadda dhalatay. waaya meesha haddaba arrintan baa taalla. gobolkan kooxo badan ayaa kala maamula. waan ognahay ahlu sunna waljamaaca, al-shabaab, maxaan ku idhahdaa burcad badeed ka qaraabatay deegaanada qaar, dowladdii maamul goboleedkii, yani intaas iyo malaha in kaleba waa ka jiraan. xaggee laga qabanaya arrimahaas? arrimahaas waxaa laga qabanayaa waxa weeyaan horta sideedaba intaana su-aashaada ka jawaab waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego maamul dhinaca gobolada dhexe ama galmudug waxa weeye waa meel ay ku dhan yihiin ummadda soomaaliyeed 5 beelood ee soomaalidu ay wax ku qaybsato oo deegaan ay ku dhan yihiin weeye. deegaankaas oo xal loo helaana wuxuu la mid yahay soomaaliya oo xalkeeda la helay. marka ama isqabs ha noqoto ama kooxahaas aad tilmaanta ha noqotee waxa weeye waa ka dhumuc weyn yahay deegaanku juqraafiyan inta uu la egyahay dadka ku nool ayaa ka dhumuc weyn. waa meel kulmisa soomaaliya oo dhan
madaxweyne xaaf iyo maamulkiisuna waxay u dhigmaan dowladda federaalka oo kale sababtoo ah soomaali o dhan baa ku dhan haba u kala badnaatee haddaan su-aashaada u soo laabtona waxa weeyaan run ahaantii waxaa looga hortegi karaa waxa weeyaan dee laba guruubada qaarkood waa kuwo u baahan inaan dowladda federaalka naga kaalmayso annaguna aan faraha ku hayno sida argagixisadoo kale iyo barcabadeedoo kale ayaga dadkooda la qalday waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ay dhallinyaradu ka soo laabato lana dhaqan celiyo wixii taa diidana waxa ay dowladda federaalka aan kala kaashanayno waana wax arrin maaragtay aan horeynin in gacan bira lagu qabto ma kula tahay xaaf inuu arrimahaas xal ka gaari doono arrimaha aad loogu fadhiyo doorashadiisana inuu cod badan helo waxaa weeye xaaf waxa weeyaan waa nin ku leh dhaqdhaqaaq weyn ku leh deegaanka ganacsi ku leh oday siyaasadda wax badan ku soo jiray ah yaqaana dadku siduu u degan yahay yaqaana qabaa'iladu waxyaalaha ay isku salugsan yihiin yaqaana deegaanka baahida taalla xiriiro fiicanna la leh beelaha galmudug ku midaysan marka run ahaantii waxaan aad u aaminsanahay waxyaalo badan oo aan u suurtageli waaya madaxda asaga ka horreysay ayaa asaga u suurtagelaysa sababta waxa weeye wuxuu xidido badan la leeyahay dadka galmudug ku midaysan aad iyo aad ayaad mahadsan tahay axmed shire ayuu ahaa hore wasiir uga soo noqday maamulka galmudug waa hagaag dhinaca facebooka haddaan eegno arrintanna cabdirashiid muuse waxa uu joogaa hargeysa waxa uu yidhi doorashada maanta ka dhacday magaalada cadaado waan soo dhaweynayaa madaxweynaha la doortayna waxaan oran lahaa noqo mid cadaalad ugu shaqeeya dalkiisa baari cabdiweli oo jooga garowe wuxuu yidhi doorashada maanta ka dhacday magaalada cadaado waan soo dhaweynayaa isaguna waxaa ku soo baxay mudane xaaf ayuu yidhi waxaana u rajeynayaa inuu xilkaas ilaahay ku asturo waxaa isaguna maxamed yaasiin ayaa caasimadda muqdisho ayaan joogaa ayuu yidhi waxaan soo dhaweynayaa doorashadii maanta ka dhacday magaalada cadaado waxayna ahayd ayuu yidhi mid taariikhi ah waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha la doortay waa hagaag kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna facebooka nagala socda halkani waa london hagaag maanta waxa ay ku beegan tahay 3 bisha May waxaana dunida laga xusayaa maalinta xorriyadda saxaafadda waxaana xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu sheegay in haddii la difaaco wariyaasha ereyadooda iyo sawiradooda ay bedeli karaan adduunka oo dhan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu horeeya xadgudubyada lagula kaco suxufiyiinta iyadoo tan iyo sanadkii 2012 lagu dilay 34 wariye sidoo kale waxay la kulmaan dhaawac xarig iyo handadaad joogta wariyaha BBC ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah wariyaasha Muqdisho waxaana uu wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan heerka xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya ibraahim aad u mahadsan tahay magacaygu waa maxamuud cali waxaan ka mid ahay wardoonayaasha idaacadda mustaqbal ee magaalada muqdisho maanta waxay ku beegan tahay 3 May oo caalamka oo dhan looga dabaaldegayo maalinta xorriyadda sidaan ognahay haddaan nahay wariyaasha Soomaaliya ka shaqeeya xorriyad ka jirta oo hadalka ama dhihi karno Soomaaliya xorriyad la isku haleyn karo oo wax walba lagu sheegi karo ma ka jirto laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa in xorriyad wariyaashu ay u riyaaqaan Soomaaliya ay ka jirto magacaygu waa Faarax Cabdi Warsame sawir qaado wakaalada wararka AB u jooga guud ahaanba Soomaaliya waad mahadsantahay Ibraahim oo maanta waa maalintii xorriyadda qowlka ee wariyaasha adduunka waxaana maanta u dabaaldegaynaa sidaad u jeedidba xorriyadda qowlkii dhanka Soomaaliyeed xorriyadda qowlka marka la yiraahdo waa shay aad u wanaagsan isla markiiba qofka qalbigiisa waxa ku soo dhacaya inuu xor yahay wuxuu arka iyo wuxuu maqla iyo wuxuu u fasaxayaan uu sheegi karo laakiin taa micnaheedu ma ahan inay Soomaaliya ka taabagashay taa micnaheedu ma ahan in Soomaaliya uu ka jiro xorriyad qowl taa micnaheedu ma ahan in maxaan ku yiraahdaa freedom kan la sheegay ee Soomaaliya ka jiro Soomaaliya waad ogtahay muddo 5 sano ku kooban Ibraahim waxa ka dhintay ilaa iyo 50 wariye waxa dhaawacmay tiro intaas oo kaleeta waxa qaxay oo mihnadoodii shaqo ka fariistay maxaan ku yiraahdaa wariyaal aad u fara badan oo maantay iyagoo hobbigoodu ahaa wariyanimada maantay suuqa qara ku jeexjeexa magacayga waa Xabiiba Axmed Jimcaale Biibto ahna tifaaftiraha iyo milkiilaha wargeyska Muqdisho Times
oo maalinla madax bannaan ah oo muddo dheer soo shaqaynaya aragtideeda xorriyadda saxaafadda inta badan magac ahaana loo sheegaa maayna inta badan xorriyaddeeda dhinacyada kastaba ma dhammaystiro wariyuhu waxay la tahay inuu xor yahay marka wixii markaas uu arkuu sheegaa dhibaatona kala kulmaa qolada oo wax laga sheegayona saxaafadda inay xor tahay sheegayaanna hadda waa dhibsadaan in laga sheego marka saas darteed xorriyaddaas waxaan isleeyahay magacuyaal inay tahay laakiin waxaan jeclaa lahay sida oo looga talagalay in loo dhammaystiro magacayga waa farxiin maxamed khayre gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ahna tifaftiraha wargeyska Xogsan Newspaper xaaladda xorriyadda saxaafadda marka laga hadlaayo wax isbedel ah ma jiro sanadkii hore iyo sanadkan waa dareemi kartaa dal 20 sano burbursanaa marka loo fiiriyo xaaladda xorriyadda saxaafadda ay ku shaqeeyaan warbaahinta kale oo adduunka la mid manihin waxa waa xaalad cakiran waa ay jirtaa xorriyadda saxaafadda dhinaca kale marka laga fiiriyana markaan u fiirino wadamada geeska Afrika wadamada dariska inuu nahay Ethiopia iyo Djibouti runtii xorriyadda Soomaaliya marka loo eego warbaahinta Soomaaliyeed inay xornimadoodii ay aad u wanaagsan tahay aan aaminsanahay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Faisal Umar waxaan ahay warqad ka tirsan wakaaladda Reuters xorriyadda qowlka saxaafadda baa laga hadlayaa maanta marka meesha wax xorriyadda qowl ama wax ma taqaana la yiraahdo hadda shaqeeya habeerta ma jirto gabi ahaanba waxa moodaa saxaafaddu wax xor leeyahay ma jirto yani qof kasta hadda on ilaahay baa ma taqaan dadka mabaadiyo oo iska nool yihiin oo iska socdaan moogiye wax la yiraahdo xorriyadda qowl ma jirto hal arkaysa qaar la iska xiranaayo qaarkood waa la dilay hadda aniga u dambeysay abeendo tababarkii waxba lagu xiray alxamdulillah ilaahay ma gaarsiin uu qarxay marka wax xorriyadda qowl yiraahdo habeerta ma jirto qof kasta wuxuu ku socdaa sidii ilaaha socdo mabaadiyo moogiye wax xorriyadda leeyahay ma jirto magacaygu waa Leila Ismaan Maxamuud waxa kamid ah saxafiyiinta ka shaqeeya Muqdisho runtii maanta oo ah maalinta saxaafadda waxay tahay maalin qiimo weyn loo leh marka laga soo tago inaan xusno inaan ku faraxno saxaafadda Soomaaliya waxaan ognahay inay ku jirto dhibaato fara badan oo mudooyinkii ugu dambeeyay tacadiyo badan inay la kulmaan in dhibaatooyinka ay jiraan oo dunida aan kala sinnayn sida xorriyadda hadalka iyo sidoo kale fikirka nadiifka in qofku uusan dhiiban karin magacaygu waa Shukur Xuseen Sabriye waxaan ka tirsanahay gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho si qaas radio dalsanayaan uga howlgalaa haddaan aragtideeda cabiro madax banaanida saxaafadda ama xorriyad badan saxaafadda kuma shaqeeyaan inkastoo burbur badan aan soo marnay haddana hadda sidii sanadii hore waan dhaanaa waa hagaag kuwaasina waxay ahaayeen wariyaasha magaalada Muqdisho ka howlgala qaar ka mid ah magaalada Hargeysana xarunta ilaalinta xuquuqul insaanka ayaa soo saartay warbixin la xiriirta xaddiga iyo tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliland ee 16 bilood ee ugu dambeeyay iyadoo guud ahaan maanta caalamka laga xusayo sidaas aad maqlayseen maalinta xorriyadda saxaafadda wariyaha BBC Hargeysa Axmed Saciidige ayaa wareystay Guule Dalfac oo ah gudoomiyaha xarunta madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ee magaalada Hargeysa maanta waa maalin la aasaasay 1993 qaramada midoobay golaha loo dhan yahay oo loogu talagalay in adduunku ku xuso isku xasuusiyo warbaahinta ama saxaafadda xorriyaddeeda lana tuso mas'uuliyaadka dawladaha ka saaran inay saxaafadda ilaaliyaan xuskaasi kulka ka mid yahay Soomaaliland qayb bay ka mid tahay sida ogtahay dastuurkeena sida ku qoran saxaafaddu waa xor dadku inay aragtidooda dhibtaan waa xor warbaahin badan Soomaaliland oo leedahay ka mid yihiin wargeysiyo afdheer TV iyo website fara badan oo soo kordhaya kolka dhinaca horumar badan baa ka jira dhinaca kalena waxa ka jira caqabado dhowr ah ay ka mid yihiin xariga saxaafadda iyo dacwad koogida saxaafadda soo kordhisay sanadihii u dambeeyay salahan sanadkii hore waxaan diiwaan gelinay 25 saxafi oo la xiray warbixintan u dambeysana waxay sheegaysaa 11 saxafi oo la xiray kadib warbixinta 13 wadarta guud marka la isu geeyo marka labada dhinacba way ka jiraan waxaad sheegaysaa marka in dastuurku qorayo xorriyad isla markaantaasina xariga saxaafaddu iyo goobaha warbaahintu aad aragto had iyo jeer waad ku soo saartaan warbixinaha aad soo saarasaan maxaa sababa markaas aad leedahay waa run wax dhinacna waxaan ka haysanaa dastuur qurux badan oo saxaafadda ilaalinaya jaraa'id badan oo arrimo maaragtay dhaliil qoraya oo qaarkood loo dulqaadanayo dhinaca kalena waxaa jira xarigii saxafiyiinta iyo wargeysyada la xiriiro haatif ugu magac dheeriya waxaa sababayana waxaan isleeyahay dastuurku sidiisa loogu dhaqmaynin oo dhaqamadii hore ka kanaa ee shuuciyada laga soo dhaxlay inuu qayb weli ka mid yahay nidaamka lagu shaqeynayo aan loo si fiican loogu wada hoggaansamaynin dastuurka iyo qodobada ku yaala iyo xorriyadda saxaafadda ee baaqa caalamiga ku qoran xorriyadda saxaafadda marka la leeyahay ma aha in aad wax doontaad samayn karto dawlad xuquuqdii qofkana waa inaad ilaalisaa iyo waxyaabo badan oo ka reeban oo inaan lagu tacadiin oo tacadiyo aan la sameyn adiga laftaadu saxufiga aan xadgudub samaynin taasi bal ka waran saxaafadda aad bay dawladdu ay tiraahdaa iyaga masalan xadgudubyo sameeya maxkamadaha la geeya maxkamadaha xukuumadda ka waran dhinac marka laga eego waa arrin la qiri karo
in cabasho badan inay ka jirto aan dowladda qura ka imanaynin xitaa shacabka ka imanaysa inay jiraan warbaahin aan anshaxa iyo xirfadda suxufinimo aan ilaalinaynin oo aan arrin u baahan wax laga qabto oo tusaalahaan dugsi jaamacadeed oo wax lagu barta ma jiro laakiin taasi ma raba cudurdaar ma noqon karto in suxufiyiinta la xidho gaar ahaan suxufiyiinta maaragtay criticalka ama wax faaqida ayaa u badan suxufiyiinta dhibaatada soo gaadhay marka labadaba in la isu dheeli tiro ayaan anagu maaragtay jecelahay in jaamacada la furo oo aqoontooda kor loo qaado aan lana caburinin oo khaladaadka imanaya aanay keeninin in la caburo la xidho saxaafaddu ma heshaa maxkamad caadila oo labadii arko marka la isqabsado cidda soo ashtakaysa ama xukuumadda noqoto ama cid kala noqoto waxay yidhahdaan dee maxkamad baa xukutay xadhigan sharci baa loo maray dhibaatada waxay ka imanaysaa maxkamadaana ciqaabad ku ah marka sida runta loo eego dowladdu xeerkay u adeegsanaysaa xeerka ciqaabta suxufigii madani looguma horkeenayo maxkamadda isagoo jeebaysan oo laleeyahay dembi buu galo ciqaaba ayaa la horka lagu keenaya hor dhibaatada halkaas ay ka imanaysaa xeerkii saxaafadda wuu jiraa oo 2007 baa la ansixiyay Soomaa xeerkii saxaafadda oo leh ciqaabta laga daayay saxaafadda si madani ah sida adduunka haddii su'aalan saxaafaddu ku caydo magdhow weydiiso waxa $7 milyan oo $600,000 lagu xukumo marka maxkamaddu si fiican bay uga kari lahayn cadaalad la heli kari lahaa marka dhibaataas maxkamadda laftooda haysata oo qof ciqaab lagu soo ogo sidii dambiilaha loola dhaqmay ayagina la horkeenay xisbiyada mucaaradka lafaantood waxay leedahay hadal baa dadkayga lagu xidhayaa oo wad ogtay imika saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani baa xidhan bal taa ka waran xisbiyada mucaaradka xidhan oo hadal xidhan dadka waxyaabaha dawladdu wadatay military base ka mid yahay DB wel committee ka hor yimaada la xirxiray salaadiina ka mid tahay marka dadka dawladda ku dhaliila arrimaha adag siiba arrimaha hantida la xiriiray musuqmaasuqa waa la xidhaa oo xisbiyada mucaaradka ka mid yihiin meelaha Soomaaliland ka liidatayna ka mid tahay qofka laakiin intuu soo taago TV ama website ee yiraahdo waan dagaalama ama booliiskii ku yiraahdo adiga baan wax kugu dhufan doonaa soo talaftii soo waxa qulay bini aadanka hadalkooda ka mamnuuca wax kamid ah dadka ku kiciyaan dagaal ama incite to violence wax ingiriisi lagu yiraahdo taas waa mamnuuc laakiin inta badan siyaasiyiinta iyo dadka saxaafadda la xidhaa lama xidhiiraan arrimaha laakiin waa mamnuuc in dadka dagaal lagu kiciyo waa arrin adag waa arrin mamnuuc guuleed dalfac waxa uu waramayay wariyaha BBC Hargeysa Axmed Saciid Cige weli waxaa noo soo socda warar badan oo Soomaalida ku saabsan oo xataa sheeko faras ku saabsan ayaa ku jirta maanta waayahay laakiin haatan Afrikada bari saacadu 5:30 ayay sii maraysaa waqtigan oo kale maalin walba waxaan idin maqashinaa mar kale wararka caalamka ee BBC-da kuwa ugu waaweyn Maxamed Cadde mar kale madaxa wadaxaajoodiyada ee ugu qaybsan ururka midowga Yurub Michael Bana ayaa ka hadlay waxyaabaha ay mudnaanta koowaad siinayaan sida ay Britain uga baxayso ururkaasi. Mr. Bana ayaa sheegay in ay waxyaabaha wajiga koowaad ay uga hadli doonaan ay ka mid noqonayso la xisaabtanka arrimaha dhaqaalaha iyo in la damaanad qaado muwaadiniinta ururka midowga Yurub ka jooga waddanka Britain iyo arrimaha la xiriira xuduudada dibadda. wafdiga mucaaradka dalka Suuriya ayaa ka baxay kulankii ugu dambeeyay ee xabad joojinta ee Ruushka uu abaabulay ee ka dhacay magaalada Astana ee caasimadda waddanka Kazakhstan. wafdiga ayaa lagu soo waramay inay wada hadallada uga baxeen iyagoo ka caraysan in xukuumadda Suuriya ay sii wado duqayn ka dhana dadka rayidka ee xagga cirka ah. ciidamada cirka ee dalka Mareykanka ayaa tijaabiyay gantaal kuwa qaaradaha isaga goosha oo aan hubaysnayn waxayna ka rideen gantaalkaasi xero militari ay ku leeyihiin gobolka California. waa tijaabadii labaad oo ay sameeyaan muddo 7 gudihiis waxayna ku soo beegmaysaa iyadoo sii kordhayso xiisadda militariga ee dalka Kuuriyada Waqooyi. kolonyo baabuur militari ah oo ay leeyihiin howlgalka uu horseedku ka yahay Mareykanka iyo NATO ee ka sugan dalka Afghanistan ayaa magaalada Kabul waxa ku weeraray baabuur lagu soo guray waxyaabaha qarxa. saraakiisha ayaa sheegay ugu yaraan in 8 qof ay dhinteen oo rayid ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 25 qof. 3 ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegayaa inay ka tirsanayeen howlgalka NATO. mar kale uu mahadsan yahay Maxamed haddaan wararka kale dib ugu noqdo intaanan u gelin qodobada culus bal hadda sheekadii faraska ayaan idiin sii sheegay waddanka Mareykanka faras ayaa dhimasho ka baaqsaday isagoo nolol cusub ka helay inuu noqdo mid wax rinjiyeeya. faraskan oo lagu magacaabo Metro waa 14 jir tartamada fardaha ka qayb gali jiray waxaana hoy cusub siiyey nin farshaxan yaqaan ah oo la yiraahdo Ron iyo xaaskiisa. waa tahay Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq ayaa la socday sheekadaas. Cabdullaahi Axmedow faraskani
wuxuu ka qayb qaadan jiray tartamada faraska lacaga badana lagu helay 300,000 oo doolara lagu helay marka dhowr tartan uu ka qayb qaatay laakiin dhaawaca ka soo gaaray jilibka ama lugta hoose maaragtay marka nina iibsaday markuu iibsanayay wuxuu islahaa inkastuu dhaawac soo gaaray number 2 ma gali kara laakiin tartamahaad kaga qayb gali kartaa baaritaanna markuu ku sameeyay wuxuu arkay dhaawaca intii loo sheegay faraska ka badanaa gaartay oo lugihii waxaa la yiri jilbihii mar dhawaan way soo xirmayaan oo jilbihii halkay ka laabnayeen maba socodkiiaba dhib ku noqon orodkaba dhaaf marka wuxuu ka fikiray wuxuu u samayn kara faraskani wuxuu yiri marka waxaan baray sida loo darbiyada loo riinjiyeeyay ama goobaha loo riinjiyeeyay oo wax loogu sawira markii ugu horeysay marka horta xalka ugu hor wuxuu ahaa in la dila maxaa yeelay fardaha markay ka qayb qaadaan tartamada noocaas oo caafimaadkooda u xumaada waxa kaliya ee wadamada reer galbeedka la sameeyo waxa waaye in marka la dila laakiin wuxuu dhahay halka aan dili lahaa waxaan ka fikiray maxaa kaloo ii qaban karaa anigana wuxuu yiri farshaxan ahay waxaan sawirayay sawirkii baan ku dayo yiri haddaan ku dayaba waaba qaban karaaba marka hadda faraskiis waxbuu sawiraa dhowr sawiraa laga gatay markii dambe warbaahinta lagu sheegay hadda intaasoo 100 dalab u taalo oo liile oo la leeyahay waa la iska daba sugayaa sawirada uu maaragtay faraska sawirada gacmo ku sameeyska waaba shaqaystaan way isla shaqaystaan hadda lacag faraskii la lahaa ma la dilaya ma la dhaafaya hadda wuxuu noqday dahab lacag uu soo saaraya inuu dadkan reer Yurub waa cajiib eeyaha waa arag sidii wax u barayaan dadkay wadaan dadka indhaha la iyo iyaga wada oo shaqada geeyo oo meesha ka shaqeeyaan oo ka soo celinaya oo meel walba marsiinaya bahalaha badda ku jira qaaray wax baraan oo maaragtay miinooyinka iyo sida la iskaga fiiriyo jiirka la barayaa jiirka wax la barayaa xayawaankii oo dhan siyaabo kala duwan ayaa wax loo barayaa looga faa'iideysanaya waxay ka fikirayaan maskaxday ka shaqaysiinayaan maskaxday tuujinayaan waxay leeyihiin haddii wadadan ay xirmatay wadadan bal ku fiiri wadadaanna ku fiiri waxyaabo badan oo maaragtay goboladan ka nimid aan aad looga isticmaalno maskaxda maaragtay bal intana maskaxda in la furo oo kolba dhinac laga shaqaysiiyo kolba dhinac wax laga tijaabiyey waa dadaalin waa mahadsantahay cabdullah waa tahay iyadoo arrinta ammaanka Soomaaliya ay ka mid tahay ajendaha lagaga hadli doono shirka Soomaaliya ee London lagu qaban doono 12 bishan ayaa waxaan eegaynaa arrinta difaaca oo ka mid ah qodobada looga hadli doono shirkaasi Xuseen Carab Ciise waxa uu ka mid yahay guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan soo saaray aragti ku aadan arrimaha dhismaha ciidanka Soomaaliya ee qaranka waxa uu goor dhaweyd iiga waramay qoraalka ay soo saareen aad baad maasantay walaal horta anagu de qoraalku aan soo saarnay wuxuu daba joogay saad og tahayba ma garanaysaa 25 ayaanu shir baa dhacay lagaga hadlayay habdhismeedka maaragtay amniga dalka oo ay soo wada saareen ma garanaysaa xukuumadda iyo maamuladu taasay daba joogtay mainlyna waxay ahayd waxyaabo aanu ka dhex aragnay oo shacabkuna ka dhex arkay inaanu markaa anagu dib study ugu samayno oo qoraalkuna markaa un sii adkaynayo inaan lagu xadidin 18,000 oo ay noqoto 18,000 bilowga in ma garanaysa de sectorada laga dhigo militariga laga dhigo military hal talis leh ma garanaysa in la cayimo la sheego runtii sida ay xooga dalku wuxuu ka kooban yahay iyo ciidamada booliisku ay ka kooban yihiin iyo isku dhafka ciidamada marka arrimo badan ayaanu ka hadlaynay maxaad dhibsateen marka adinku markaad fiiriseen qaabka ciidamada loo samayn doono saad ogtii bode moogta arrinta ugu weyn dadku ay xoogaa farta ku rafiiqeen waxay 18,000 laakiin arrintaa runtii markii xukuumadda ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada amniga difaacu iyo labada guddi wada fadhiisteen si fiican baa looga hadlay waan ugu mahad celinay in maaragtay noo sharaxaan laakiin 18,000 waxay ahayd arrin yani ay leeyihiin ajnabigu intaasaan bixin karnaa macaawino 18,000 laakiin waa laga badin karo laakiin bilowga imika yani 18,000 4 lagu daray oo ah danab saasaan doonayna iyo in xoogga dalka Soomaaliyeed saan ku cadayna meeshaba isii dastuurku qeexayaba ay yihiin ciidamada dhulka badda cirka iyo difaaca cirka in taasa loo cadeeyo in talisku mid noqdo in wasaaradda iyo talisku ay yeeshaan ma garanaysaa maamulka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo eegayana maamulada iyo dowladda dhaxda marka ciidanka baddu ma ku jiraan hadda waa ku jiraan ha baddu waa muhiim basow maahan sida dhibaatada dhulka ka taagan mid la mid ah
ama ka weyn baa ka taagan oo burcad badi waxa ugu muhiimsan waxa weeye runtii in la inoo dhiso waa muhiim waxaanu leenahay dhisad ogtahay 3,330 kilomitir oo xeeb ah iyo bad marka runtii inaanu yeelano la inoo dhiso ciidankaas si aynu ciidan dagaal ma noqonayo laakiin ciidan runtii ilaaliya badaheena iyo xeebeena in la gaarsiiyo heerkaas waa muhiim saad ogtahay imika badaheena waxaa ilaaliya ajnabi oo runtii lacag aad 100 milyan oo billions gaaraya ku qaata laakiin dee awooddeedana ma lihin imika waa okay laakiin in la gaarsiiyo oo programka la bilaabaa taasuna dee in way ku cadday meesha waxay ka mid noqonaysaa ma garanaysaa sida loo tayeenayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo bay ka mid yihiin laakiin hadiiba ay ciidamadii ku dhisan yihiin mucaawino Soomaalidu doorasho ma leedahay inay yiraahdaan waxaasaan rabnaa iyo tiradaasaan rabnaa iyo sidaa naloo yeelo wallahi si haddaad u eegto si haddaad u eegtana waxa weeyaan moogtahay mucaawinadu waa wanaagsantahay way ku kabaysaa laakiin de innaka naftirkeena waa lanaga rabaa oo dee taa xukuumadda laga doonaya ajendaha inay keento soo bandhigto siday ciidamadeeda iyadu magarasa ama dee laakiin markaad soo dhaqaalaha soo kacayo dalka soo burbur ka soo baxaya aad tahay mucaawino waad u baahan tahay marka saan kuu sheegay 18 kun uun de waa bilow waa inta ay mucaawinadu gaadhayso laakiin waa marba markuu dhaqaaluhu sii kobco awoodanu sii weynaato waa lagu daraya yani markaa imika sidii ma xidhna imika way furan tahay 18 kun ilaa inta loo baahda weeye oo 4 kun oo daran bay ku jirto wallahi de arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in wax kasta oo halkaa ka soo baxa shirka ka soo baxana annaka qaraarkayga way ku qoran tahay in subject to parliamentary approval weeyaan waa in lagu soo celiyaa baarlamaanka oo baarlamaanku markaa ka dooda munaaqashooda kadibna markaa baarlamaanku ansixiyaa markaas bay noqonaysaa ansax markaas dastuurkana la waafajiyo go'aan kasta ka soo baxa halkaa iyo qabadhismeedka ciidamada xildhibaan xuseen carab ciise oo ka tirsan guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa hagaag maanta waxay ku beegnayd sidii aan hore idinkugu sheegnay maalinta saxaafadda adduunka dood ayaan dhex dhignay haddaba qaar ka mid ah dhegaystayaasheen taas oo ku saabsan cabashada ka taagan saxaafadda Soomaaliya doodda waxaa ka qayb qaadanaya cabdirasaaq salaad shidane oo jooga Muqdisho cabdikaafi axmed cabdi oo jooga Gaalkacyo iyo cabdigeesi oo jooga Boorama doodda waxaa u qaybinaya aadan saalamiin waxaana ku hormaraya cabdirasaaq salaad shidane marka koowaad marka aan fiirno cabashada iyo dhibaatada ka soo yeeraysa saxaafadda Soomaaliya marka la eego saxaafadda Soomaaliya iyo sida ay u shaqeydo iyo dhibaatada ay la kulanto iyo waxyaabaha jira waxaad moodaa saxaafadda Soomaaliya dibta ugu horreeyay inay ayadu sababto taasi oo ah in ay sahayn mid la shaqeydo bulshada Soomaaliyeed haddii maanta bulshada Soomaaliyeed ay la shaqeynayso saxaafaddu waxa ay ahaan lahayd mid si aad ay bulshadu ugu kaalmayso waxyaabaha soo wajaha taasina waxa ay keenaysaa in dawladda ama maamulka markaas meesha ka jira saxaafadaas ka shaqeynayso in aysan soo hadin si fudud ay ku soo hadin ama ay ugu imaan cagajugleed balse saxaafadda Soomaaliya oo ah mid hadda la socota heerka ay siyaasaddu marayso ayaa keenaysa in cagajugleed iyo dhibaato iyo waxyaabo kaleeto ay la kulanto cabdikaafi axmed oo Gaalkacyo jooga ka waran aragtidaas maxaa ka qabtaa waxaa jira cabashada jirta dooda muxuu ahaa dawladda iyo wariyaasha waxaan u kala qaadaya anigu labo cabashada mid dooda ka jira dawladda xaggeeda iyo mid wariyaasha ka jira midda xagga dawladda waxa weeye hindisay sharciyeedka wariyaasha iyo saxaafaddu ay soo bandhigteen oo ahayn mid barax tiran iyo mid xagga wariyaasha ah oo ah in wariyaashii ay isugu jiraan wariyaal tayo leh iyo kuwa aan tayo lahayn oo inta tayada yar ay ku badan yihiinoo ay ku yar yihiin inta tayada iyo waxbarashada le oo heerkiisa waxbarasho oo loo rabay xagga saxaafadda ay ku yar yihiin marka waxaan leeyahay labada dhanba way ka jidhaa cabashada hadday ahaato dhanka dawladda iyo hadday ahaato dhanka wariyaashaba iyo saxaafadda waa gartay cabdigeesi waa maxay fikirkaaga adigu doodda waad dhegaysanaysay salaad shidane iyo cabdikaafiba waan idin salaamay dhammaantiin iyo guud ahaan b b c da maanta waa run oo waxay ku beegan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda aniga waxay la tahay xorriyadda saxaafadda marka la eego saxaafadda Soomaalida meel kastaba waxbaa rukun u ah waanan ognahayo saxaafaddu waxa weeye quwadda saddexaad adduunka lagu tiriyaa inay tahay quwadda afraad waay quwadda afraad lagu tiriyaa quwadda shukran quwadda afraad adduunka lagu tiriyo aniga waxaan leeyahay sartu waxay ka quruntay oo ay ka liidataa waxa weeye horta marka hore waxaynaan lahayn koolajyo iyo maxado
ay ka soo baxaan dadka saxaafadda soo bartay. midda kalena waxaanay ku barbaarsanayn saxaafadii anshax kama soo hadho. anshaxa naga maqanka weriyahaan kuwa dalka jooga anshax fiican oo wanaagsan oo ay kula macaamilaan dadkii ay kula macaamilaan iyo waxa ay gudbinayaan ma yahay wax fiican oo ummadan anfacaya. barnaamij markaa la diyaarinayo waxa la yidhaha muxuu faa'iido ummadan u leeyahay baa la yidhahdaa. midda kale dhibaatada jirtaa waxay tahay qofku marka la ciqaabo ee la qabto ee lasoo xiray weriyihii la yidhaha dembi baad gashay la yidhahdo dembiile loo soo qoro ee intaasoo maalmood la hayo ee jeelka lagu hayo lasii daayo ma yidhaahdo maxaa laygu haystay ma yidhaahdo. waxaanu garanaynin waxa lagu haystay iyo sababta loo soo qabtay iyo isagu inuu xaq leeyahay keliya. weliba waa gartay dalka joogta waru hayna waxaa la yidhahda aadan saalimiino waa gartay ma la xiray famous buu noqonaya caan. cabdi geesi waa gartay haddii aan hal su-aal idin dhex dhiga markaa saxaafadda soomaaliya waan ognahay wariyaashu dhibaatooyin badan bay ku shaqeeyaan, qaraxyay ku shaqeeyaan, xarig bay ku shaqeeyaan, ma helaan mushaaraadkay ku filnaa mararka qaarkood, wakhtiyo adag bay shaqeeyaan. haddana intaa waxa ay soo gudbiyaan warar oo ay caalamka u soo gudbiyaan oo subaxii qofku markuu soo tooso waddankii wixii ka dhacay geeska ilaa ka gees wuxuu ka akhrisanayaa wariyaasha gudaha wararka ay soo baahiyaan. aan ka hormaro cabdisaaq saashanoo jooga waa muqdisho. marka waxaa rabaa inaad waxar ku laabto doodii walaalkay oo gaalkacyo jooga oo yidhi macnaha saxaafadda maantay ka jirta soomaaliya ma ahan mid macnaha haysata tababaro iyo horumarino. saxaafadda soomaaliya sida aan ognahay waa ay jirtaa tababaro iyo waa haystaa, laakiin tababaro kusii filan inaysan jirin waa wax meesha ku jira. marka aad fiiriso saxaafadda iyo weriyaha ka shaqaynaya hadda waxaad moodaa inay yihiin labo aan isfahansanayn. maxaa yeelay weriyuhu haddii marka hore uu dareensan yahay si kasta oo wuxuu soo barto ama talada usoo qaato, haddii uu dareensan yahay in uu u shaqaynayo bulsho burbur wax badan soo martay, ma ahaan lahayn dhibaatada ku imaatay iyo cabashada haddan jirta ma ahayn mid sii jirta. taasi waxa ay ka saacideed weriyaha haddii uu saxaafadda oo sida rasmiga ah ugu shaqaynayo ama xarunta oo ka shaqaynaya ay ku wacyigeliso una sheegto inuu waxa u shaqaynaya ay tahay bulsho ku nool dal burburtay iyo waxyaabo badan soo mareen. waa gartay cabdikaafi baan u gudbinaya. cabdikaafi ma la qabtaa markaa adigu shidane? anigu walaalkay waxaan taagnahay wariyaasha way jiraan in badan oo tayo leh, waxbarashadoodan dhisan tahay oo heer sare ka gaarsan xagga akademiyada mass media, laakiin waxaa badan marka naloo fiiriyo annaga xaggeena bulshadii qayb ku milan oo war aan sifaftirneen, war aan muxuu ahaa lahayn soorti wanaagsan soo tabinaya. marka duruufahay ku shaqaynayaan marka ka waran. maya anigu waxaan isleeyahay looguma garaabi karo. qofku duruuf kasta uu ku shaqaynayo horta isagaa dalbaday, weriye inuu noqdona isagaa dalbaday. waxaan laga rabaana waxa weeye inuu soo gudbiyo ama duruuf adaga ku jiro ama yuusan ku jirin xog saxa oo fiican. midda kalena saalimiinow waxaad og tahay adduunyada inaan war la kala iibsanin, oonu warku gelin corruption, una gelin ganacsi aanu gelin. marka war la kala iibsanayo xog fiican ma soo baxaysa. weriyihiina isagaaba iskugu wacanba inuu galo ama gudub loo qaado ama la dilo ama la weeraro markuu isagu war meel ka soo iibsado. marka ka dhibaatada keenaysa ee isagana khatarta u keenaysa waxa weeye wararka la kala iibsanaya, laakiin isagaa shaqada dalbaday. marka aan fiirino weriyaasha tacadiyada ay kala kulmaan maamulada iyo meelaha ay joogaan ama ay ka shaqeeyaan waa mid horta leh mudnaanteeda. taasina waxa ay keenaysaa in weriyaha maamulka oo la shaqaynaa hadba oo yahay mid la socda siyaasadda maamulkaas oo ku shaqaynayo. cabdirasaaq su-aashayda waxay tahay maamuladu dhibaatada ay wariyaasha u geysanayaan iyaga laftirkooda ka imaanaya wariyaasha keliya yaynan saarin eede dhinacaas bal ka hadla laftirkeeda. maamulka meesha ka jiraay waxa uu markasta dhibaatada iyo waxyaabaha oo u geysana oo u xuskana waxa ay tahay waxyaabo ayaga ay soo gudbiyeen. maahan maamulku inuu si qaldan oo ugu soo gudbi karo saxaafadda dhibaato si toos uga imaanaysa xaggiisa, laakiin waxaa jiraya dhibaato oo isagu marka hore oo dalbaday weriyaha meeshaasi jooga. taasina waxa ay tahay maamulka inuu ku kaco waxyaabo xadgudub ku ah. waa gartay cabdikaafi axmed baan siinayaa oo gaalkacyo jooga. cabdikaafi maxaad uga jawaabaysaa arrintaas? marka waxaa keenaysa in weriyihii tacadigan kaga imaanaya xagga maamulkiisa asaga inuu xaqiiqii sheego. waxaa loo baahan yaha weriyihii asagoo isticmaalaya aqoontiisa waayo aragnimadiisa iyo dadkan uu ku dhex tirsan yihiin inuu mar walba isxadido. weriyahana loo baahan yaha mar walba inuusan kaga dhex milmin siyaasada hadday dalabsan tahay iyo hadday tahayba mid. waa gartay haye waa fahmay nuxurka ee hadalkaaga iyo jawaabtaada. cabdigeesi baan u gudbaya marka. aniga saalimino fikirkeyga wuxuu yahay
marka horeba wariyuhu markuu la shaqeynayo ama maamul ama dowlad weyn marka uu la shaqeynayo waxaa habboon inuu waxa uu teginayo hubiyo. maamulka haddaan maanta war ka sheegayo warka waa inaan laba dhinacba ka hubiyaa, kaan ka sheegayo iyo kaan u sheegayo labadaba waa inaan ka hubiyaa. midda kale qaladka waxa keenaya waxa weye kaan hore u sheegay hubin la-aan labada dhinaceys hayo aan la hubinayn. waa tahay waxay ka doodayeen xorriyadda saxaafadda oo maanta caalamka laga xusayo. aadan saalamiin ayaana hadalka u qaybinayay. halkaas haddaan ka sii soconno, madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari waxa uu mar kale ka baaqday shir golaha wasiirada maanta. tani waa markii saddexaad ee uu si xiriir ah uga qayb geli waayo shirka golaha wasiirada oo ay tahay inuu isagu guddoomiyo. koox bulshada rayidka u dhaqdhaqaaqda waxay madaxweynaha ugu baaqeen inuu daawo raadsado, laakiin kalkaaliyaashiisu waxay ku warramayaan inuu shaqada guriga ka wado. weli wax sharaxaada lagama bixin awood la-aantiisa inuu fagaare ka soo muuqdo 12 maalmood ee ugu dambeeyey. Chris Ewoker ayaa warkan Abuja ka soo diray. kulanka golaha wasiirada ee maanta waxaa shir guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka Yemi Osinbajo, iyadoo uu isa soo tarayo cadaadiska madaxweynaha lagu saarayo inuu xilka si kumeel gaar ah ugu wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka si uu u qaato fasax caafimaad. ayaa mid ka mid ah la taliyaasha madaxweynuhu waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu shaqaynayey. waxa uu sheegay in Mr Buhari uu talaadadii la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda. sidoo kale xaaska madaxweynaha Aisha Buhari ayaa waxay sheegtay in caafimaadka madaxweynuhu aanu u liidan sida loo malaynayo. warbixinno ay ku daabacday boggeeda Twitter-ka ayaa waxay ku sheegtay in madaxweynaha uu si caadi ah u gudanayo waajibaadkiisa. madaxweyne Buhari fagaaraha laguma arag muddo 12 maalmood ah, inkastoo la taliyaashiisu ay sheegayaan inaanu xanuunsanayn. baaqyada isa soo taraya ee loo jeedinayo madaxweynaha in uu raadsado daaweyn ayaa muujinaysa walaac ay dadka reer Nigeria ka qabaan in caafimaadkiisu uu sii xumaado. maxamuud cali ayaa warbixintaas soo jeedinayay. halkaas aad nagala socotaan waa BBC London. wararka kalena waxaa ka mid ah wafdiga mucaaradka ee Suuriya ayaa isaga baxay kulankii ugu dambeeyey ee xabajooyinta uu Ruushku martigeliyey ee ka dhacaysay magaalada Astana, caasimadda dalka Kazakhstan. wafdiga ayaa lagu soo warramay in ay wadahadallada ka baxeen iyagoo ka caraysan in xukuumadda Suuriya ay sii wado duqaynta dadka rayidka ah. waxaa soo jeedinaysaan idhaahdo Faatimo Macalin. wafdigan oo wakiil ka ah dagaalyahanada mucaaradka ee gudaha dalkaas ku sugan ayaa joojiyey ka qaybgalkooda wadahadallada Astana wax yar kadib markii ay dib u bilowdeen wareeggii afraad. waxay leeyihiin tallaabadan waxaa looga cabanayaa weerarada cirka ah ee ay dowladdu ku qaado dadka rayidka ah. wadahadallada oo isku mar lala qabta hannaanka qaramada midoobay ee Geneva ayaa lagu wada in diiradda lagu saaro fikirka ah samaynta goobo dagaalka laga ilaalin karo islamarkaana loo fasixi karo gargaarka bini'aadanimo. Ruushka ayaa meelahaas ku qeexaya goobo khatartooda la yaraynayo, waxaanay ku yaalaan deegaanka Idlib ee dhacabariga Guuta oo ku taala duleedka magaalada Dimashq ee koonfurta Suuriya. qorshaha ayaa looga xaajooday wadahadallo talaadadii qadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. way mahadsan tahay Faatimo. dalka Sacuudi Arabiyana ninka ku-xigeenka u ah dhaxal sugaha boqortooyada ayaa sheegay in xarunta cusub madadaalada ay wax ka bedeli doonto ku tiirsanaanta shidaalka keliya ee dhaqaalaha dalkaasi. Sebastian Asher ayaa warbixintan ka diyaariyey. waxaa soo jeedinaysa Fardoose Maxamed Cilmi. arrintan ayaa loogu magac daray sanadkii madadaalada ee Sacuudi Carabiya, taasi oo ah fikrad muddo dheer u muuqatay mid soo galooti ah oo aan saldhigan karin boqortooyada ku dheggan diinta iyo dhaqankeeda. balse waxaa jiray xaflado dabaaldegyo ah iyo bandhigyo ay ka dhex muuqan doonaan xidigaha Hollywoodka oo la filayo in ay dhacaan bilaha soo socda. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed ayaa loo arkaa inuu yahay maskaxda ka dambeysa qorshayaalka isbedelada dhaqaale ee ka dhacaya dalka Sacuudiga. waxa uuna ku adkaystay in faa'iidooyinka dhaqaale ee laga samaynayo xarumaha madadaalada iyo nasiinada la baahiyo. dhaxal sugaha ayaa sheegay in tani dalka ay u baajinayso 22 bilyan ee dollar ee Sacuudigu haatan ku qarash gareeyo safarada dalxiiska ee dalka dibadiisa. dhaxal sugaha ayaa si cad u arka tallaabadan inay qayb muhiim ah ka tahay istiraatiijiyadiisa uu ugu dambeynta uga saarayo Sacuudiga ku tiirsanaanteeda dhaqaale ee shidaalka.
aad iyo umahadsan tahay farduuse maxamed cilmi ayay ahayd. Markana dhinacaasi Maraykanka haddaan tagno, doorashadii Maraykanka ka dhacday mar hore ayaa waxa ay soo dhammaatay oo madaxweynaha Maraykanka ee cusub waxa uu haatan xafiiska hayaa 100 maalmood ee ugu horeeyay oo u dhamaatay Donald Trump. Laakiin Hillary Clinton oo doorashadaasi looga adkaaday ayaa sheegtay in ay dhacday in markaasi faragelin dibadda looga sameeyay ay sababtay in laga helo doorashada. Hadal cusub oo ay soo saartay ayay ku sheegtay in faragelinta Ruushka iyo FBI-da Maraykanka darteed ay doorashada u weyday. wararka BBC-da arrintan ka qortay waxaa inoo haya Mawlid Xaaji Cabdi. Shir ka dhacay magaalada New York ayay ka sheegtay in haddii ay doorashadu qabsoomi lahayd bishii Oktoobar ay ku guulaysan lahayd ka hor intii aanu James Comey aanu soo daabicin qoraalka uu ugu sheegay golaha Koongareeska Maraykanka inuu dib u bilaabayo baaritaanka la xiriira adeegsiga iimayladeeda gaarka ah. iyadoo ka hadlaysay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxay ku eedeysay in uu si toos ah ugu lug lahaa faragelinta doorashada Maraykanka. Interfered in our election, and it was clear he interfered to hurt me and to help my opponent. dabcan dhab ahaantii waxa uu farageliyey doorashadeennii. wax cad ayayna iska ahayd in uu doorashada u farageliyey si uu ii dhibaateeyo una gacan siiyo musharaxii ila tartamayey. haa dabcan waxaan aaminsanahay in Ruushka uu dal weyn yahay, waxaana aaminsanahay in dadka Ruushka ay yihiin dad aqoon-yahano ah balse aanan haysan maamul wanaagsan. waxaan aaminsanahay in ay yihiin dad laga hor istaagay fursadaha ay qayb uga noqon lahaayeen dunidan casriga ah si ay sare ugu soo kacaan. Join the modern world in a way that will lift them all up. Hillary Clinton waxay farta ku fiiqday inay si hagaagsan u maaraysay ololaheedii doorashada, laakiin ay u guuldaraysatay dhacdooyinkii yimid 10 maalmood ee ugu dambeeyay doorashada. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tiri, I take absolute personal responsibility. I was the candidate. I was the person who was on the ballot. And waxa isaaran mas'uuliyad ballaaran. waxaan ahaa musharax. waxaan ahaa qofkii la filayay in uu doorashada ku soo baxo, balse waxaan idin sheegayaa waxaan ku jiray olole ballaaran. waana ku faraxsanahay ololihii aan soo samaynay. ma ahayn olole dhammaystiran, balse guusha wax yar bay inoo jirtay ilaa ay soo baxday warqaddii agaasimaha FBI-da James Comey 28kii bishii Oktoobar. Ruushkana uu shaki geliyey maanka dadkii ku dhiiranayay in ay ii codeeyaan aniga, balse la cabsi geliyey. Raise doubts in the minds of people. Farduuse way mahadsan tahay. markana qadarka waqtiga nooga haray dhinaca isboortiga. Mawlid waa kan. Axmed aad baad u mahadsan tahay. xidigaha da'da yar ee kooxda Monaco waxay dareemayaan kuwa aan loo babacdhigi karin marka ay caawa ka hor yimaadaan kooxda Juventus ciyaarta labaad ee wareega afarta ama semifinalka koobka horyaalada Yurub ee Champions League. laakiin golahayaha rugcadaag ah ee kooxda reer Talyaani Buffon waxa uu leeyahay khibradda kooxdiisa Juventus ayaa ah furaha guusha ee caawa. Monaco ayaa koobka ka saartay kooxaha Manchester City iyo Borussia Dortmund si ay u gaarto afarta ugu dambaysa iyadoo soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u fiican. Buffon oo 39 jir wuxuu yiri waxay haystaan dhalinyaro waana walaaca aan qabno, laakiin waxaan filayaa in kulamada labada lug ee 180 daqiiqo ah ay shaqaynayso khibradda waana mid gacanta ugu jirtay buu yiri kooxdeena Juventus. xidiga da'da yar ee kooxda Monaco ee 18 jirka Kylian Mbappe ayaa soo jiitay indhaha caalamka gaar ahaan kooxaha waaweyn ee Yurub, waxaana 4 ka mid ah kulamada kala baxa uu 5 gool ka dhaliyay kooxaha Dortmund iyo waliba Man City. waxaana markaasi ay kooxdani Monaco dhalisay 95 gool 34 kulan oo ay ciyaartay. xalayna ciyaar xiiso leh ayaa dhex martay kooxaha deriska ah ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa xalay dhaliyay 47 ee markaasi saddexleyda kadib markii 3 gool uu xalay ku hubsaday shabaqa kooxda ay deriska yihiin ee Atletico Madrid. bal aynu maqalno goolkii saddexaad. Ronaldo for the hat-trick! Of course, Cristiano Ronaldo does it again! It's another Champions League hat-trick!
waa tahay waxaana caawa la filayaa bal hadda kooxda Real Madrid ay is arki doonaan iyadoo Real ay aad ugu dhowdahay inay u soo baxdo finalka waxaa laga sugayaa 3-1 ku badiso Atletico Madrid haddii kale Real ayaa finalka tagi doonta waxay sugi doontaa caawa midka Monaco iyo Juventus u soo baxa waxaa kaloo caawa dhici doonta ciyaar ka tirsan koobka Europa League kooxaha Ajax iyo Lyon ayaa is arki doonaan habeen dambana Manchester United waxay qaabili doontaa kooxda Celta Vigo Ahmed aad iyo aad ayaad umahadsan tahay intaasoo dhan ha u daymala'aanina barnaamijkii oo ay soo diyaarisay naciibo maxamuud intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo caawa 9 fiidnimo nabadgelyo